kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal markastoo naga maqlaysaan waa subaxnimo isniin ah 10 bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan waxaa kamid ah maamulka Hiiraan oo sheegay in laga hortagay isku day ay al-shabaab ku jiri rabtay isu socodka Beledweyne iyo Buula Burde kumanaan qoys oo ku barakacay dagaaladii toddobaadkii hore dhex maray Soomaalida iyo Oromada dadka ay saameysay abaarta Soomaaliya oo qaarkood gaaray xeryaha qaxootiga ee Kenya waxa kale oo aad maqli doontaan dimuqraadigu maadaama ay madaxweynihii iyo aqalkii sare iyo aqalkii hooseba isku haystaan labadii sano oo la soo dhaafay waxa uu suuragalaysay barnaamijkooda inay fushadaan marka sidaa darteed Republicaanku aad bay u xamaasadaysan yihiin waxay doonayaan inay ka soo ceshadaan labada aqal ama midkood waa muhiimadda ay leedahay doorashada Mareykanka ka dhici doonta horaanta bisha November qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan iyo wararka ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan balse waxa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Cabdulqaadir Yuusuf Cali mahadsanid Kawthar Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in tijaabooyinkii gantaale ay dhowaan samaysay ay ahaayeen dhoolatus taatikada nuclearka warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in dhammaan 7 gantaal uu si shakhsi ah u kormeeray hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa sheegtay in dhoolatuska military la sameeyay labadii toddobaad ee u dambeeyay uu ahaa mid lagu qiimeeyay ka hortagga iyo difaaca weerarada nuclearka ee dalkaasi hay-adda ammaanka ee dalka Bahrain ayaa lagu eedeeyay in ay geysteen xadgudubyo ba'an oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha kooxda u ololeysa xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in qayb ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha Bahrain dad lagu jirdilay si ay u qirtaan dilal aysan geysan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa weydiistay golaha ammaanka in ay si degdeg ah u tixgeliyaan codsiga Haiti ee ah in ciidan caalami ah oo degdeg ah la siiyo si ay uga caawiyaan khalalasaha ammaanka ee dalka oo dhan ka jira Antonio Guterres waxa uu sheegay in ciidanku ay gacan ka geysan doonaan sugidda dhaqdhaqaaqa xorta ah ee saadka bini'aadantinimo iyo ilaalinta kaabayaasha muhiimka ah madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah kadib roobab mahiigaan ah oo dilay ugu yaraan 25 qof dhanka kale dalka Nicaragua guryo ayaa waxyeello soo gaartay waxaana korontadii ay ka luntay 1 milyan oo qof iyadoo duufaantu ay kasii gudubtay dalkaasi ugu dambeyntiina madaxweyne Putin ayaa sheegay in sirdoonka Ukraine ay qorsheeyeen oo ay fuliyeen qaraxii Sabtidii ee waxyeeleeyay buundada kaliya isku xirta gacanka Crimea hadalkiisii ugu horeeyay tan iyo markii buundada qaraxday ayuu Mr Putin waxa uu ku tilmaamay weerar argagixiso oo la doonayay in lagu burburiyo kaabayaasha muhiimka ee Ruushka warkiis waxnimana waa naga inta Kawthar aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Yuusuf Cali halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa BBC dhegeystayaal markana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadeen subax wanaagsan markale dhegeystayaal aan ku bilaabnay maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in tiro badan oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay ku laayeen tuulada Jicibow ee hoos tagta degmada Buula Burde wasiirka amniga Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa sheegay in ujeedka al-shabaab uu ahaa inay qabsadaan deegaankaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka kadibna ay gooyaan wadada isku xirta Buula Burde iyo Beledweyne oo dhawaan la furay wasiirka ayaa igu warramay khadka telefoonka waxa nimankan argixisada al-shabaab ay soo buuxdhaafiyeen jiinka webiga ee dhanka tuulada Jicibow oo 30 kilomitir ee waqooyi kaga beegan degmada Buula Burde halkaas waa berigii ciidankii amniga iyo ciidanka deegaanka oo ku sugnaa iyo ayagii soo buuxdhaafiyay webiga jiinkiisa dhulkaas oo dhan oo qorshahoodu ahaa in ciidamada meeshaasi jooga ay burburiyaan kadibna ay soo galaan Buula Burde iyo deegaanada hoos yimaada si loo kala gooyo isu socodkii Buula Burde iyo magaalada Beledweyne oo dib u soo laabtay waxaa ilaahay mahadiis ah ciidamadii halkaas ku sugnaa iyo iyaga ayaa food isdaray dagaalkan waxaa markii dambe ku biiray oo
gurmad u noqday ciidamo ka kala baxay Buloburti iyo Sooman oo deegaanka tagay ciidamadaas oo iska caabin xoogan kala kulmay nimankii argagixisada ahaa markii koowaad markii dambana waxaa Ilaahay maadiisa u suurtagashay in la jeero oo nimankaas cadowga ah si la yaab leh loo burburiyo farsamada iyo difaaci ay sameysteen firxadkoodiina qayb ka mid ah webiga qaaday qaybna meel buur ah ayay isku aruursadeen insha Allah intaas dhimanne waa la soo afjari doonaa haddiisan isdhiibin ilaa iyo subaxnimada maanta ah bal nooga waran khasaaraha soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay khasaaraha xaggeena waxaa ka shahiiday sargaal iyo 2 askari oo midna yahay ciidanka deegaanka midna yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shuhadadaas saddexdaas ah iyo dhaawacyo oo aan saas u badnayn laakiin khasaaraha xaggooda gaaray aad ayuu u badan yahay khasaare aan la soo koobi karin waaye qayb ka mid ah meedadkoodii webiga ayaa qaaday oo soo bandhigi doona meediyaha jabka xoogan ee gaaray iyo nimanka cadowga ah dhimashada xoogan ilaa shalay gaaray wararku waxay sheegayaan in dagaalyahanada al-shabaab ay inta uu dagaalku socday difaac ka xirteen jinka webiga Shabeelle marka sidee ayay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka uga saareen difaacaas nimankan marka koowaad ay soo buux dhaafiyeen xagga jinka waxay isku dayeen in difaac adag xirtaan kadibna halkaas ay duulaan ka qaadaan oo ay burburiyaan salgadii ciidanka dawladda iyo ciidanka deegaankaba ay halkaas ku lahaayeen laakiin nasiib wanaag taatikada iyo dagaaladii hore wixii laga bartay iyo ciidamadeena aad tababar sare u leh ayaa u suurtagashay in la burburiyo fariisimo difaacyadii ay sameysteen taasoo sababtay in jab xoogan oo dagaalkan uu ka soo gaaro ku warsadaan waayay kadibna ay qaarna webiga ku daateen qaarna meel yar oo buur ah isku aruursadeen oo dagaalka saas ayuu ku soo gaaray maqribnimadii ilaa hadii dagaalkii bilowday ilaa maqribkiina waa dareemi kartaa dagaal intaas socday mar haddii al-shabaab ay si fudud isku soo aruursan karaan oo ay ka dagaalami karaan meel aan sida uga fogeyn Buuloburde soo khatartooda mid weli taagan ma aha Buuloburti eerideed hadda shabaab xoogan degan oo Buuloburti soo weerari karo anaga ma ogin laakiin nimanka qowleysata ah oo si dhuumaaleysiya deegaanadan ciidamo iyo dhalinyaro yar inay ka soo aruuriyaan ay ku soo weeraro iyagana jabka ay la kala kulmayaan dagaalada mar walba ay la galaya ciidankeena ayaan keeni doonta casharada lama iloowaanka ee loo dhigo inuu suurta gelin doono inay mar dabo ay ku soo kahdoomin kuwa hadda ka harayna oo meelahan hadda joogana oo inay soo dhiibaan haddaysan soo dhiibin gacanta ciidanka ayay ku bixi doonaan insha Allah gobolka Hiiraan intee la eeg ay hadda kaga sugan yihiin al-shabaab nimankan argagixisada ah hadda deegaano waaweyn oo gacantooda ku jiro inta badan ma jiro way jiraan deegaano qaar oo si fikir ah hadda ay ku haystaan oo ciidamadooda yani aysan joogin deegaankaas annagana ma gaarin ayagana way ka baxeen laakiin weli fikirkooda ka sii shaqeeyo deegaano noocaas way jiraan nimankan agag badan ku furmay meelo badan ayuu dagaalku ugu socdaa waana adagtahay inay deegaano ay sii haystaan marka sidaas darteed maanta waxaan dhihi karaa 15% ma dhama deegaanada ay gobolka Hiiraan hadda ay kaga sugan yihiin waana rajaynaynaa in mar dhow guud ahaan gobolka uu ku xoroobo doono nimanka argagixisada ah saad la socotid Shabeellada Dhaxane waxa mar dhow ka bilaaban doona guluf weyn oo aad u xoogan markuu bilaado gulufkaasna waxa culays badan ka digi doona gobolkan Hiiraan insha Allah guud ahaan Hiirshabeelle oo xor ah ayaan rajaynaynaa inay noqon doonto bisha soo socota ama bisha inta ka dhiman si aan ugu dabaal degno sanadka cusub al-shabaab oo Hiirshabeelle xurka ah waxaan rajaynaynaa inay taas suurtagali doonto kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Hiirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo ii waramayay markana dalka Itoobiya shacab badan ayaa weli ka barakacay deegaanada ay dhawaan ku dagaalameen Soomaalida iyo Oromada qaar ka mid ah dadkaas oo gaaray qaybo ka mid ah deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in la gubay guryahooda isla markaana ay la haatan la yihiin qaar ka mid ah eheladooda waxaa dadkaas ka mid ah Xaaji Cabdi Maxamuud Ducaale oo qaar ka mid ah qoyskiisa la soo qaxay waxa uu u waramay wariyahana Jigjiga Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo meel warta barbareeyay ila gobolka Baali oo dhaxdeeda oo Soomaaliya baan ka soo barakacnay hadda meeshaan ku sugnaay waa degmada Buuraadamule harudbi barakaca sidee idin qabsaday sidee xaaladdu ku bilaabatay xaaladdu waxay ku bilaabatay warta maalin casar bay kuwa ciidamada imaadeen xabaday ku rideen cidii bay argagixiyeen cidii way xadareen
markii isdhex cararay habeenkii 4 saac oo habeennimo ciidamo iyagoo dadweyne wato iskaashanaya ay soo galeen gurihii bay dab ku naareen xabadii rideen gurihii bay gubeen dadkii u barakacay habeenkii roob kasta laguma badbaadinayo imisa qoys baad hadda ku soo gaarteen halka aad joogtaan halkana joogna hadda waxaa soo gaaray adigu tuniya 200 qoys camal way soo gaareen habeennimadii maalinimadii waxunbaa socda weli ma soo dhammaanin waa uun la soo daadguleen guddiga waxunbaa soo cidii dhaqaaqi karta ama daa'iheen ama fayo wixii baahi suuxaymo wixii kale waxunbaa soo gaari ku jira degmada meel adiilayda qoblaha gurada ama ka tirsan baa la soo galay degmada gurada ama laga soo birmaday dadkii waxunbaa la soo badbaadiyay ku jira wixii la helo waxunbaa meeshaasay tal uun loo sii ku jira barakaca ka hor dad waxaa weeye degan oo nolol haystaad ahaydeen hadda dad soo barakacayo faramaran baad tihiin maxaad ku nooshihiin degmada gurada waa laga soo birmaday dadweynaha qablaha jeelay wixii jogay birmadeen wixii la heystay dadka unbaa waxaa lagu farqaysi ku jira dadku agoonta wax baahi dhiman ku jira roob hayo baahi heesta 3 habeen 2 habeen wax mid ah dhaminin inta la soo xambaarun baa gurri iyo xarood iyo wixii kasta way heystaa halka aad ka soo barakacdeen iyo halka aad joogtaan hadda masaafiinta leeg bay isku jiraan imisa habeen baad dhexda ku soo jirteen dadku markii saas ma kala dheereen 60 kilomitir wax ka baarayay wuxuu haadee meel soo ka socono ka soo gooy ka soo daaqi ka dibadii wadadii oo dhanba ciidan baa la dhigay ciidan baa fadhiyo dadka dhex wareegaysa guddiga habeennimadii la socdaya malina ma dhaqaaqi karo haddii la dhaqaaqa ciidamadu ay gumaarayaan dadweynaha wixii deegaanada aad ka soo barakacdeen oromiyay ku dhex yaalaan baa tiri marka way ka go'an yihiin degmadan hadda aad timaadeen ee guridhaam oo leh way ka go'an yihiin jiraameed oromiya dhexdeeda oo bogta islaamku ee mijaaba sidee xagga oromiya baa lagu meeshan xaggan hadda aad joogtaan waxaa la leeyahay xaaladda nolosha waa laga dayrinayaa oo shuban baa hadda jira la leeyahay arrintaa maxaad iiga sheegi kartaa dadkii horta wax caafimaad qabay wax jirroba lama kala garanin dadkii waa dad baahi u suuxay ugu dhacay waqtigii roob baa qabtay waqtigii roobkii iyo baahidii iyo jirradii hadda caruurihii saxbaan bay yihiin inay jirra yihiin inay calool yihiin weli lama kala ogaanin waxbaa shalbaa loo sameyn ku jiraa inay dad jirran oo shuban bilaabayna way ku jiraan wax kaalmo dowladeed oo idin soo gaadhay may jirtaa xaaj cabdi waxa kaalmo dowladeed la soo gaadhay waxba kuma jiraan degmada oo degmahan la soo gaadhay wax loo araamushay ama dadweynaha imaanay oo noo birman ku jeemooy wax kale xagga dowladda la soo gaadhay ama hay'adaha ama dowladda waxba kuma jiraan kaasi waxa uu ahaa xaaji cabdi maxamuud ducaale oo ka mid ah dadka ku barakacay colaadda u dhaxaysa Soomaalida iyo Oromada Itoobiya oo u waramayay Ismaaciil Buurgaabo halkani waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba ololaha doorashada waqtiga dhexe ee dalka Mareykanka ayaa maraya meel xasaasi ah inkastoo madaxweyne Joe Biden aan uu tartamayn doorashadan ay ku soo baxayaan xubnaha golaha wakiilada iyo kuraas ka mid ah sanadka dalkaas ayaa hadda waxaa natiijada ka soo baxda ay fafaalo u tahay sida ay shacabka dalkaas ugu qanacsan yihiin hogaamintiisa haddii uu xisbiga jamhuuriga ku guuleysto aqlabiyada labada gole ee baarlamaanka waxaa taasi ay dhaawac ku noqon doontaa awoodda madaxweyne Joe Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga sida uu warbixintan ku eegayo waryaheena Minneapolis Siyaad Saciid Saalax sida saxda ah in ka yar bil ayaa ka harsan doorashada xilliga dhexe ee dalkan Mareykanka jamhuuriyiinta ayaa u heelan inay la wareegaan aqalka hoose bisha November dimuqraadiguna waa kuwa raba inay difaacdaan guusha sareynta Koongareeska oo ay hadda haystaan waxaa tartamaya dhammaan 435 Koongareeska Mareykanka ka tirsan halka aqalka sanadkuna ay ka taagan yihiin 3 meelood meel balaayiin dollar oo xayeysiis ayaa labada xisbi isticmaalayaan si mid walba uu hanta guusha natiijada doorashadan xilliga dhexe ayaa u muuqata mid aan caadi ahayn oo aan la saadaali karin sababtuna waxay tahay rajooyinka dimuqraadiga marka loo eego sida daran ee xisbiga kale ee jamhuuriga uu u harjadayo gobolada qaar jamhuurigu waxa ay codbixiyaasha u dirayaan fariimo ku saabsan dhaqaalaha liita dambiyada cabsida leh iyo sicir bararka sii kordhaya ee dalkan ka jira
dimuqraadiyaduna waa kuwo isaga difaacaya digniino ku saabsan ka hortegidda iyo doorashadan xilliga dhexe oo dhacda marka madaxweyne 2 sano ay u dhammaato ayaa xiise gaara leh. sababta xiisaha dhaliyay ayaan weydiiyey Cabdi Maxamuud Saleebaan Cabdidheere oo ka faalooda siyaasadda Mareykanka. sababta ay xamaasad u leedahay waxa weeye xisbiga laga helay madaxweynenimadu waxay doonayaan madaxweynahaas iyo xisbigiisu barnaamijkii ay wateen inay ka xakiyaan. sida kaliya ku hakin karaanna waxa weeye in ay haystaan labada aqal oo Koongareeska, aqalka hoose iyo aqalka sare oo Senatka labadaba, ama mid ka mid ah ay haystaan. sababtoo hadday mid ka mid ah haystaan weli way joojin karaan barnaamijka madaxweynuhu wato. marka xisbiga dimuqraadigu maadaama ay madaxweynihii iyo aqalkii sare iyo aqalkii hooseba isku haystaan labadii sano oo la soo dhaafay, waxa u suuragelaysay barnaamijkooda inay fushadaan. Republicaankuna awood uma lahayn inay hakiyaan. marka sidaa darteed Republicaanku aad bay u xamaasadaysan yihiin, waxay doonayaan inay ka soo ceshadaan labada aqal ama midkood. Cabdidheere ayaa qaba in sanadkan yahay mid la mid ah kuwa hore oo ay taariikhdu dib isu qorayso. waxay u badan tahay xisbiga Republicaanku in ay helaan labada aqal, sababtoo ah taariikhiyan Mareykanka xisbiga helay madaxweynenimada dadka u qodeeya aad uma xamaasadaysna. sidaa darteed aad uma soo baxaan. waxay u badan tahay marka labada aqalba in laga helo ama kuraas badan laga helo. xisbigii laga helay doorashadii 2 sano ka horna waxay doonayaan xisbigii ka adkaaday in ay ka aarsadaan oo ay hakiyaan barnaamijkii ay wateen. dhanka kale Haboon Cabdulle oo ka mid ah Soomaalida Minnesota arrimaha doorashooyinka iyo kaalinta haweenkana muddo ka shaqeynaysay ayaa qabtay in labada xisbi sanadkan aan la kala saari karin. fariina u dirtay Soomaalida Minnesota oo ay ku codsanayso inay danahooda gartaan codeeyana. dadka badanaa xisbiga dimuqraadiga ama republikaanka u codeeya waxaa moodaa inay rabaan mid termkaneeto mid xisbigooda inuu aada u soo baxo. marka waxaa la filayaa dadka markastaba dhexdhexaadka kuwa independentiga loo yaqaano inay kala saari doonaan. laakiin hadday noqoto gudoomiyaha gobolka, hadday noqoto jagooyinka kaleeto, waxaa moodaa si aada iyo aada in la isugu dhowya. marka waxaan dhihi lahaa dadka markaas codeynayo Soomaalida ama Muslimka gobolkan ku nool inay fiiro gaar u yeeshaan, inay fiiriyaan qofkii markaas danteena iyo wixii anaga noo roon sharciyaasha badana ku aadan marin doona ilaahay idankiis. haddii madaxweynaha xilligan oo dimuqraadi ah labada aqal ama mid ka mid ah uu jamhuuri noqdo maxaa dhici kara ayaan weydiiyey Cabdidheere. Biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga haddii labada aqalba ama midkood laga helo barnaamijkii ay wateen uu hakanaya, marka dhibaato weyn ayay u geysanaysaa. haddii aqalka sare oo sanadka weliba looga darsado, haddii maxkamadda sare boos ka banaanaado ama maxkamadaha federaalka oo kale, way adag tahay in uu dad geeyo sababtoo ah Republicaankii oo haystay aqalka sare ka hor imaanaya. codkaas ayaa u dambeeyay warbixintii uu Minneapolis ka soo diray Siyaad Siciid Saalax. markana dadka ay saameysay abaarta ka taagan Soomaaliya ayaa u hayaamay deegaano u badan gudaha dalka. waxaa sidoo kale jira qaar ka tallaabay xuduudaha Soomaaliya oo nolol u raadsaday dalalka deriska ah. Ibraahim Jibriil oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bay ayaa qoyskiisa ula hayaamay xeryaha qaxootiga ee Dadaab. waxa uu sheegay inaanay jirin qaabilaad rasmi ah oo uu ka helay xerada Ifo oo uu hadda ku sugan yahay. qadka telefoonka ayuu ugu waramay Axmed Mursal. walaal waxaan ka soo gahanay baydhabo midigeeda oo beeraha ka mid ah dad beeraley ayaan wahan meeshan ka soo gahanay. sababta u soo qaxdeen maxay tahay? walaal waxaan u soo gahanay dad beeraley ayaan wahan 4 roob beerihii way abaarsadeen. marka dad beeraley beerihii ay ku noolayeen beerihiina ay ka abaarsadeen. marka abaartaas ayaan ugu soo gahanay. sidee ku timaadeen xerada qaxootiga Ifo ee haatan ay ku sugan tihiin? waxaan ku imaanay gaariyaan soo raacnay wax yaro jeebkaana ku jiray ayaan gaari ku soo raacnay. marka dad kale MCAD oo kale lacag gaarin soo saartay ma jirin. marka wax yaro aan iska haysanay beerihii markii hore aan tacbanay intii anoo yaaleen intaasan gaari ku soo raacnay lacag yar ahayd. marka saasaan ku soo gaarinay. waa tahay halkee hadda ku sugan tihiin oo adiga hadlaysaa maxaase kala kulanteen meesha hadda aad u soo qaxdeen?
harada ifow ayaan joogaa waxaan soo gaarnay horta ifow bishii 9/15 ayaanu nimi marka waxaan kala kulnay dad walaal ayaa joogay dadkaas ayaana noolnahay hadda markii dhaxdaan 20 dhowr maalmood ayaan joognaa marka walaal dadkii si fiican baan noo soo dhaweeyeen weli hadda 20kaasi dhowrka intaan joognin kaarno maanu helin marka hadda waan iska noolnahay irsaagdan Allah bixiyay laakiin waan iska noolnahay waan iska joognaa hadda qoyskiinu imse qof ayuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay 15 ayaan ka koobanahay waa tahay 15kii naas baa ifaad ku soo qaxdeen wax gacan idin siiya oo kaalmo bini'aadantinimo oo ama hay'adaha ahaadeen ama dawladda ha ahaadeen ma jirtaa walaal dawlad iyo kuwii hay'adaha deeqda bixiya kuwaasba nooma imaanin deeqdina ma siinin dadkii harada deganaa oo walaalka islaamka ahaa ayaa waxaa noo soo aruuriyey inta 20kaasi dhowrkaas maalmood ayaa waxay noo keeneen intaas ayaan ku noolnahay hadda intii xerada aad ku sugan tihiin maxaad kala kulanteen oo hadda aad noo sheegi kartaa oo ku saabsan dhanka hoyga iyo nolosha guud ahaanba may walaal waxaan iska dhasanay waxa la yiraahdo bush oo dhar iyo waxaas iyo bustooyin lagu daboolay intaas ayaanu dhasanay intaas ayaanu hoynoo ah marka waxa kale oo guryaal kale oo dhasanay oo guryaalkii waaweyn ma jiraan waxaas yar hadda oo buushka ayaan ku jirnaa walaal hadda maxaad qorsheynaysaan iminka in aad sii joogtaan xerooyinka mise in aad laabataan hadda waxaa noo tala waxaan rabnaa hadda la yiraahdo hadaan kaarkii UN-ka aan helno inaan xeradan iska joogno ayaanu hadaladan noo asaasan rabnaa hadda la yiraahdo rajadiina aad ka qabtaan marka inaad kaar heshaan oo la idin diiwaan geliyo intee la egta aad baan u rabnaa hadda la yiraahdo kaarka aad aduun danaynayna hadda la yiraahdo dhanka noo qaabilsanaa waxay noo sheegeen in mar dhow la bixin doono kaararku ayaa noo sheegeen marka rajaan ka qabna inaan helno Ibrahim Jibriil oo kamid ah beeraleyda Bay ayuu kaasi ahaa balse u soo qaxay xerada Ifo ee dalka Kenya oo u waramayay Axmed Mursal Xuseen halkani waa BBC waa tahay ciyaarihii ayaa inoo soo socda balse markan siyaabo kala duwan ayaa loo fasiray wareegto uu shalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya taasoo uu ku sheegay in lagu toosinayo habraaci loo maray magacaabista guddiga golaha adeega garsoorka iyo midka la dagaalanka musuqmaasuqa labadaas guddi oo la sameeyay xilligii uu dalka ka talinayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareegtada madaxweyne Xasan ayaa lagu sheegay in la baabi'iyay dhammaan wixii go'aano ahaa ee ay gaareen muddadii ay howlgalayeen labada guddi haddaba si aanu sharci ahaan u fahanno waxa ay ka dhigan tahay wareegtada cusub ayaa waxaan ka wareysanay abukaata Zakariya Yuusuf oo si qoto dheer u yaqaan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Cumar ayuuna u waramay xeerka sharciyadiisa marka aan fiirinayno waxaa laga fiiriyaa xeerka waxa uu nidaaminayo iyo procedureka uu ku soo baxay iyo saxsanaantiisa xagga procedureka sharciga xeerkan marka waxaad fiirinaysaa sida uu ku soo baxay xeerkan waxa uu ciwaan toosinta habraaca magacaabista guddiga golaha adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa waa xeer toosinaya habraac macnaheedu xeerkan wuxuu toosinayaa xeerkii ka horreey oo habraaciisii waa qaldanaa uu qirayo sidaa daraaddeed golihii garsoorka adeega ee ugu dambeeyey iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa aqalka sare ma una ansixin sida dekreetada ku cadna waa sidaas haddii marka xeerku uu toosin yahay oo wax lagu toosinayay adiga sharciyan qaabkay ahayd in loo maro dhismahooda markii horeba waxay aheeday sida uu tilmaamayo qodobka 112 farqadiisa 12aad waxa uu tilmaamayaa guddiyada madaxa bannaan ee dastuurka waxaa soo gudbinaya wasiirka oo iska leh shaqadaas wasiirkan wuxuu u gudbinayaa golaha wasiiradana wuxuu u gudbinayaa baarlamaanka labada aqal ee baarlamaankana si wada jira u wada ansixinaya macnaha ayagoo wada fadhiya ma kana ansixinaya kan kale loo gudbinaya waa ansixinaya ama waa soo diida sideeda dhanba baarlamaan wuxuu ka doodo qodobka 71 ayaa cadaynaya oo la leeyahay ansixinta ama diidada doodaha baarlamaanka ee qusaynaya arrimaha dastuurka labada aqalba waa loo wada muddo ayay marka soo shaqaynayeen howlihii ay soo qabteen oo dhan maxay noqonayaan sida xeerkan ku cad waa la baabiyaa la leeyahay haddii marka xeerkani uu meesha ka saarayo dhammaan howlihii ay guddiyadani soo qabteen gaar ahaanna guddiga musuqmaasuqa haddii aynu eegno tusaale ahaan waxaa laga yaabaa horey inay cid ugu caddeeyeen inay musuqmaasuq gashay oo laga yaabo inay dowladda ka tirsan tahay maxaa laga yeelayaa marka dadkaas oo kale ama go'aanadaasi ay hore u gaareen oo kale
sida xeerka qoraay waa la baabi'inaa laakiin aniga doodaydu ka sharciyaqaan ahaan ma oran lahayn dib ha loo celiya ma dhihi lahayn guddigaan baabi'in lahaa howlihii ay qabteenna sidoodii u tagnaan lahaayeen kama dhigeen howlihii ay qabteen baabi'inaya sharci hadba kasaa sheegaysa adiga hadda su-aasha aad ii weydiisa aada su-aal adag u tahay oo dhib badan oo in laga fikira marka hore loo baahnaa su-aasha marka waxay tahay haddii qof ama wasiir ama ciid ama agaasin ay ku soo eedeeyeen lacag uu dhunsaday maxkamad la geeyey caddayn la helay la xukumay wixii howlihii ay qabteenna la baabi'iye la yidhi caddaymahaasi waxaasoo dhan waa wada baaba'ay qofkana waa la soo daynaa lacagtina lacag dhusan ay noqonaysaa that is not logic meeshaas marka waxaan u malaynaa haddii ayna si kale u qorayn arrintaas sitooda waxay aheeday inaan la dhihin waxa ay qabteen waa la baabiye ee la yidhahdo guddigaa la baabiye ma jiraa qaab kale oo loo toosin karay guddiyadan sharciyan inta aan la kala dirin maba jiri kartaba markii dastuurka hadii lagu xadgudbo waa in dastuurka la saxaa shuruucda kale oo dhanba meel laga fiiri karaa jirka oo remedy la yidhaahdo laakiin remedy dastuurka ma yeelanayo waa in dastuurka la waafaqaa wax alle iyo wixii dastuurka ka soo horjeedo unconstitution waa in la baabi'iyaa horey buuq ayaa uga taagnaa dhisidda ee guddiyadan sharciga markii la eego yay tahay in guddiyadan uu soo dhiso wasiirka iska laha proposalka koobaad soo jeedinayo golaha wasiirada ka doodayso ansixinayso baarlamaankay u diree baarlamaanka aqalka hoose hadduu ansixiyo aqalka sare u diraa aqalka sare ansixinaa procedurka habraacaasa la maraa kaasi waxa uu ahaa abukaate zakariya yuusuf oo u waramayay xasan sheekh cumar wararkay ciyaarahana haatan haddii aan egno cristiano ronaldo ayaa waxa uu dhaliyey goolkiisii 700aad ee waayihiisa ciyaareed kadib markii ay kooxda Manchester United ay 2-1 ugu adkaatay Everton kulan ka tirsanaa horyaalka Ingiriiska ee Premier League 37 sano jirkan afka hore ugu dheelay xulka qaranka Portugiiska ayaa 144 gool oo kamid ah 700 ee gool uu dhaliyay waxa uu u dhaliyay kooxda Manchester United 450 gool waxa uu u dhaliyay Real Madrid 101 wuxuu u dhaliyay Juventus halka 5 kamid ahna uu u dhaliyay kooxda Sporting Lisbon goolkii uu xadii ku dhaliyay garoonka Goodison Park ayaa ah goolkii labaad uu Ronaldo dhaliyo xilli ciyaareedkan kaas oo goolkiisii 699aad uu ka yimid kulankii Europa League oo ay kooxda Manchester United bishii September kaga hortagtay kooxda FC Sheriff Ronaldo ayaa kaydka ku soo gacanay way dhaw madigeeda oo beeraha kamid ah dad beeralay ayaan wahan meeshan ka soo gacanay sababta u soo qaxdeen maxay tahay walaal waxaan u soo gacanay dad beeralay ayaan wahan 4 soo beerihii way abaarsadeen marka dad beeralay beerihii ay ku noolayeen beerina ay ka abaarsadeen marka abaartaas ayaan ugu soo gacanay sidee ku timaadeen xerada qaxootiga ifo ee haatan ay ku sugan tihiin waxaan ku imaanay gaariyan soo raacnay waxa yaro jeebkaana ku jiray ayaan gaari ku soo raacnay marka dad kale MCAD oo kale lacag gaarin soo saartay ma jirin marka wax yaro aan iska haysanay baarihii markii hore aan taabanay intii aan noo yaaleen intaasan gaar ku soo raacnay lacag yar ahayd marka saasan ku soo gaarnay waa tahay halkee hadda ku sugan tihiin oo adiga hadlaysaa maxaase kala kulanteen meesha hadda aad u soo qaxdeen harada ifo waan jooga waxaan soo gaarnay horta ifo bishii 15 ayaanu nimi marka waxaan kala kulnay dad walaal ayaa joogay dadkaas ayaana noolnahay hadda markii dhaxdaan 20 door maalmood ayaan joognaa marka walaal dadkii si fiican baan noo soo dhaweeyeen weli hadda 20 kaasi door intaan joognana kaarno maanu helin marka hadda waan iska noolnahay irsaagdan Allah bixiyay laakiin waan iska noolnahay waan iska joognaa hadda qoyskiinu imse qof ayuu ka kooban yahay